tahay inaad isbartid luqad kaliga jawaabtu waa haa hadaba su'aasha igu soo laalaabatay waxay tahay qaabkeen isku baraa wadooyinkeen raaca si aan isku baro luqad kaliga hadaba videogan waxaan kula wadaagi doonaa stepska aad u baahan tahay inaad raacdid si aad isku bartid luqad kaliga ka hor intaan bilaabin video ka hor fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channel subscribe leh video like garay una share garay asxaabtaada jecel inay isbaraan luqad stepka koowaad si aad isku bartid luqad marka hore waxaa u baahan tahay inaad xadidid levelka aad marayso waa ognahay dhammaan Englishka naguma cusbo iskuulada ku soo dhiganay marka ma tihid bilow ABC lagaaga bilaabayo wax uun waad ka fahansan tahay luqada si aad u xadid levelkaaga luqada Englishka waxaa jira imtixaanaad free ah oo aad ka heli kartid Google-ka imtixaanaadku way fara badan yihiin aan hadda waxa ku soo xiray saddexdan mid ka dooro haddii saddexdooda aad geli kartidna way ka fiicnaan lahayd EF Standard English Test ama waxaa loo yaqaanaa FSAT Cambridge English Placement Test iyo Duolingo English Test imtixaanaadka markii aad gashid waxaad ogaan doontaa levelkaaga luqada Englishka levelkan waxaa loo qaybiyaa markii loo fiirinayo CFR A1 A2 B1 B2 C1 iyo C2 A1 waa qofka beginnerka ah bilowga ah A2 waa elementary beginnerka wax yar dhaama wax yar wuu hadli karaa B1 wuu hadli karaa laakiin hadalka wali wuu xadidan yahay B2 sidoo kale wuu hadli karaa laakiin mawduucyada waaweyn sida siyaasadda oo kale kama hadli karo C1 qofkan waa advanced wuu fiican yahay dadka luqada u dhasheen ay wax yar ka hooseeya markuu hadlay waa fahmaysaa laakiin aad ayuu fiican yahay C2 waa qofka professionalka ama native-ka fa markii aad gashid imtixaanka oo aad ogaatid levelkaaga waxaa ku fududaan doono inaad heshid resources ama meelo aad ka baratid luqada oo adigu وهبون mana ku wareeraysid meeshii aad ka bilaabi lahayd step 2 raadso resourceska kadib markii aad ogaatid levelkaaga waxa bilaabaysaa inaad raadisid resourceska waxa ku raadinaysaa levelkaaga tusaale ahaan haddii levelkaaga imtixaanku kaaga soo baxay inaad tahay A2 si aad u heshid resource waxaad tagaysaa ChatGPT ama Google midka aad ku fudud kadib waxaad ku qoraysaa A2 English wax badan ku soo bixi doono marka adiga kugu xiran tahay wixii aad ka dooranaysid haddii aad akhrin rabtid akhrisa ku raadin kartaa haddii aad dhegeysan rabtid podcast iyo A2 waa heli kartaa haddii aad raadinaysid cashiro tixana ah ama musalsal camal oo isku tixane waxaad heli kartaa YouTube-ka kaliya ku qor levelkaaga English ku dar A1 English A2 English waxaad sidoo kale heli kartaa imtixaanaad free aad ku ogaan kartid meelaha aad ku liidatid sida hadalka akhrinta qoraalka stepka saddexaad raadso language partner ama qof aad luqada isla barataan maxaa yeelay aniga bini aadan aan ahay waxaa laga yaabaa inaad caajistid inaad wixii sii wadi weysid kuga adkaato way fiicnaanad marka haddii aad heshid qof aad isdhiirigelisaan markuu asiga ka dhaco aad soo saartid baska marka adiga ka dhacdid lagu soo saaro qof haddii aad weysid waa ka maarmi kartaa haddii aad adiga tahay qof go'aan leh waxaa jira applicationo aad ku practicing kartid luqada Englishka oodan u baahanaynin qof saaxiib inaad markaas yeelatid applicationadaas waxaa ka mid ah Hello Talk Free for Talk iyo HiLocal applicationadaas waxaa ka helaysaa dad ajaanib ah oo aad la practicing kartid luqadaada sidaasna waxaad kaga maarmaysaa inaad language partner ay yeelatid stepka afraad isku day inaad isku wadid afarta xirfada luqada oo mid intaad focus ka saartid kuwa kale ha hilmaamin isku day inaad kala qaybisid waqtigaaga waqti aad siisid inaad wax qortid waqti aad wax akhrisid waqti aad hadashid iyo waqti aad wax dhageysatid stepka shanaad ee ugu dambeeyo ku soo dar luqada aad baranaysid noloshaada tan waxaan ula jeedaa isku day in waxyaabaha aad noloshaada caadiga sameynaysid aad ku soo dartid luqada aad baranaysid sida inaad wax ku dhageysatid wax ku daawatid una hadashid fursad walba aad heshid inaad ku hadashid that's it for today waxaa ku rajaynayaa horumar wacan haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah fadlan igala soo xiriir Instagram-ka shaashada saaran see you in my next video bye guys